بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dr. Safiin walaasha in la hadlaysa waa Dr. Safiin barnaamijkeena maanta aan soo gudbinayaa insha Allah waxa waaye sidee looga faa'iideysan karaa dadka waaweyn ama dadka hawlgabka ah ee shaqada ka fariistay kadib markaan ogaanay dadkii dhalinyarta ahaa ee shaqooyinka loo dhiibay ama dhalinyarta inta badan sida shaqada marka loo dhiibo ayagoo soo arkin maaragtay dalkan wanaagiisa iyo maaragtay sida dalkan dad badan dhiigooda ugu soo qubeen oo dad badan usoo baaba'een oo intaas la soo gaarsiiyey dalkan quruxdiisa saasay tahayba ama ha burburo oo haddii kor wax soo gaareen sababtoo dalka haddii dowlad la'aan ku dhacdo burbur badan waa imaanaya laakiin haddana dad ayaa kusoo dhiigoodii usoo horay dad ayaa intaan soo gaarsiiyey alxamdulilah shukr rabbil caalamiin dowlado badan oo naga maaragtay naga roonaaba maanta aysan gaarin aad baan u fiicannahay laakiin waxaan rabaa waxyaalaha hadda dhiman oo weli dalkii uu u fadhiyo ragaadka u yahay sidee looga faa'iideysan karaa dadka waaweyn kadib markaan aragnay dhalinyartii ama cusbayd ama maaragtay jaamacadaha iyo caluunta sare ka soo baxday oo dalkii markay maaragtay meeshii loo dhiibaba aysan wax weyn oo faa'iido aysan ka keenaynin sababtoo ah kuma jirto sidee waddankaaga u horumarisaa sidee jiilkaaga aad waxaa dhali doontid waxa adiga aad dhali doontid sidee dalkaaga ugu macaashaan kuma jirto inta badanba ma ku jirtaba laakiin waxaa ku jirta sidee darajo ku gaartaayo hebel darajo hebel ama agaasimo guud ku noqotaa ama wasiir ku noqotaa ama maaragtay madaxweyne ku gaartaa ama halkaas sidee u orodaa halkaas aad ku gaartaa maxaase ku gaari kartaa sidee lacag ku heli kartaa sidee daar ku dhisan kartaa only bas ayay ka fakarayaan markaan ogaaday research badan aan sameeyey ama aan wax badan u kuurgalay waxaan ogaaday wax allaale wixii dhallinyaro oo maanta waddanka aan jagooyinka looga dhiibo ama qabto inay qaabkaas kaliya ku fakarayaan ee uu yaryahay hal iyo laba yahay nin ku fakaraa war dalkan sidee jiilkaaga ama Soomaaliya magaceeda u taagnaanhaya waa yaryahay nin ku fakaraa waxa markaa halkaas marka ay tahay waxaan leeyahay sidee looga faa'iideysan karaa dadka waaweynka oo odayaasha ama hawlgalka sababtoo ah ayagu sidaasoo kaleetay waagi hore wax usoo qaribeen qaarkood suurtagala in dalka sumcadiisii iyo maaragtay hantidiisii ayba dhiibeen wadamo kale ama sirtiisiiba ay gudbiyeen laakiin maanta markuu waayeel noqday wuxuu faa'iideyn karaa in maaragtay uu soo khasaaray uu soo baaba'ay uu soo tanasulay buu faa'iideyn karaa sidaas awgeed waxaan leeyahay dadka hawlgabka oo waayeelka hadda maanta hawlgab ma jiro lacaga lagu bixiyo hawlgab lagu kala diraa ma jiro laakiin waxaa suurtagala kuwa inay hay'adihii iskaga dhex jiraan mutacalimiin ah oo waxba badan qaban karin oo ciduba hawl u dirsan iyadoo maanta dhalinyartiiba gabdha ha ahaadeen wiilal ha ahaadeen dadkii yaryaraa ayba guuxayaan waxay ku guuxayaan habartan waayeelka ah islaantu waayeel waaye maxay taqaanaa maxay qaban kartaa adaguse waayeel waaye muxuu qaban karaase muxuu qaban karaa ay dhalinyartu maanta weligu meeshaasba ay mid walba uu isleeyahay ama ku taamaya taasuna waxay ka mid tahay qayb caasinimada ka mid ah waaye sababtoo ah gabadhan weyn waa qof wax soo baratay inta adiga soo baratay ka badan soo baratay waayo aragnimo leh experience leh kaa aqoon badan haddaa marka adigoo shalay jaamacad ka soo baxdoo ordayo maaragtay bidbidahaya aa istiraahday qof weyn adaa ka cilmi badan qofkan waa qof weynaaday waxaad waagaaga waa soo laqday aabe waqtigaaga waa soo laqday ama adeer waqtigaaga waa soo laqday hooyo waqtigaaga waa soo cuntay kaliya fakarkiin ay tahay dhalinyartu ay tahay hadday gabdhiyo wiil yihiin haddaba taas maahan qofka weynu experiencegiisa cilmigiisa iyo ra'yigiisa iyo maskaxiisa intaba wataa marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta ha ka faa'iideyseen dadka waaweynka ha ka faa'iideyseen midda kale dadka waaweynka tanasul waaye way tanasuleen hadday sidiinoo kale dad boodboodo waxay rabaan iska sameeya ahayn ayagu markaas waa tanasuleen nin walba wuxuu leeyahay talow ninka wax ka hareen wiil cunugaagu maanta xagee kusii noolaan karaa
ayuu nin walba uu kusoo tanasulhayaa ama laga qaadanhayaa talooyin aada u fiican, ama khasaaradii hore uu sameeyey dalal badan uu maaragtay dalkiisa cayaaro badan uu ku sameeyey ayuu hadda kasoo tanasuli karaa, laga faa'iideysan karaa. marka waxaan leeyahay odayaasha ha laga faa'iideysto. sidee looga faa'iideysan karaa? marka waxaan leeyahay waxaa looga faa'iideysan karaa in maaragtay hay-adiiba adigu dhowr qof loo qoro oo maaragtay dadkaas waayeelka ugu yaraan hay-adii 20 qof in loo qoro, hay-adii halkii hay-ad kastaba 20 qof in loo qoro camal. dadku waa saddex ma badna dadka waayeelka hay-adiiba in maaragtay intaas ama 200 ama maaragtay laga qaybsho hay-adiiba loo qoro, oo marka la fariisiyo la yiraahdo Soomaaliya xagee u socotaa, in la yiraahdo maxaase la soo maray, maxaase ka faa'iidnay, maxaase intaas maaragtay lasoo weydiiyo. way ka jawaabayaan, 100% bay ka jawaabayaan. waxaana suurtagala inay Soomaaliya taagan ama wanaagsan ay keenaan. waan u jeednaa meel loo dhaqaaqaa lalaaya, meel loo dhaqaaqo si dowladnimo lagu keeni lahaa, si wax lagu adkeyn lahaa. dadkii way sii burburahayaan, eber bay sii burburahayaan. odayaasha xataa niyaddaa kasii dhimanaysa, dhalinyarta xataa eber ayuu dharkii furtay, dhar qaqaawan bay meelaha marhayaan, waxay ahaayeen aysan jirinin. maskaxdii mid walba leeyahay xagee ku noolaanaysaa dhahayo, iyaga dhan gidi wada tahriib iyo xagee u carartaa ka fakarayo. kuwii xaasaska lahaa xataa ilmahaga xagee geysataanay ka fakarayaan. waa dad ayaga dhan lala tego waayo, waa lala tego, waa la maqan yahay, qalbi qaa'ib baa lagu wada jiraa. marka waxaan dhihi lahaa alxamdulilah, shukra bilcaalamiin. intii hadda ilaahay maskaxdooda dejiyo dalkooda iyo diintooda iyo nimadooda haysatana waaba yaryihiine ilaahay maaragtay haw siyaadiyaan leeyahay. inta kalena waxaan leeyahay ilaahay ha soo dejiyo dalkooda iyo diintooda iyo dalkooda allaha baro, iyo dowladnimadooda allaha soo baro, allaha kusoo jeediyo. waxaad arkaysaa maanta meel kasta inuu qofku uu leeyahay luuqadaas ingiliishkan aan tixgelinaya oo baranaya, sidii in maaragtay iyadu ay janno gelinayso. luuqadaas ingiliishka ayaan si fiican u baranhayaa. soomaaliga waa laga tegay, luuqadii soomaaliga kuwaan aqoon oo haddii la kugu rahay xataa aan aqoon naxwadeeda iyo orodkeeda luuqad ingiliisha usii ordahaya. marka waxyaalo badan oo dhibaataha iska jirto ceeb ah soomaaliya in maaragtay dhalinyartoodiina aysan si fiican calankoodii iyo dalkoodii iyo diintooda aysan hoos u fiirinaynin oo waxoodii tixgelinaynin. suurtagal it is possible odayaasha waaweynka laftigoodu inay markay sheekeynayaan ama wax dhahayaanba ay luuqadaas ingiliishka oo 4 xabo jajabka ah bay iska wadaanba, oo maaragtay wax kasta ay ku sheegahayaan. oo hadday barnaamij lagu soo jeedinaya ay kusoo jeedinayaan. marka soomaaliga dhammaababa laga tegayba, haddii oday tahay iyo haddii dhalinyaro tahaba soomaaliga dhammaababa laga tegayba. haddii dee soomaaligaaga aad ka tagtana dee dalkaagii waa burburisa, maxaad u haysaa dalkaagii? marka eraye maaragtay haddii la kuu rahayay oo meelay ka socdaan la aqoon oo inay wax dubiyaan mahan aan waxba dhisayno, oo haddii ilaahay kuu reeyahay oo hay-adaha kuwa shirahaya kaliya, shirarkaas kaliya qofka looga faa'iideysto 24 saac odagu kugu soo celcelinaya ama qofka dhalinyarta kugu soo celinaya. taasna waa khasaare aan u jeedno. waxaan rabaa marka odayaasha weli waa iska jecelnahay, dadkaas waayeelada waa iska jecelnahay in maaragtay laga faa'iideysto oo laysku keeno, shirarka la keeno, oo maaragtay aqoonta laga qoro, oo kii siyaasadda laga qoro, kii horumarinta laga qoro, kii maaragtay arrimaha bulshada wax laga qoro, kii maaragtay human resource wax laga qabo ama maaragtay shaqadii shaqaalaha wax laga qoro, kii maaragtay ay nooc kii waxbarashada wax laga qoro, kii maaragtay qof walba maaragtay meeshuu ku fiican yahay wax looga qoro. odayaashaas inta la aruuriyo dalka, marka waxaan is leeyahay kii ciidamadiisa wax looga qoro, qaabka loo dejin karo, maamka qaabka loo dejin karo. waxaan is leeyahay marka dalka iyo diinta waa degahayaan. diintu waa ilaahay baa noo dejiyey, waan hafay, laakiin dalka wuu degahayaa markii aqoontiisa la dejiyo. waxaa meesha ka muuqata in maaragtay maantay aqoontii dalka inaysan deganayn, qof walba meel u raaco uu la'yahay, kii xataa aqoonta lahaa meel u raacay la'yahay. laakiin markii wax la qoro oo wax la diiwaan geliyo, waxaa imaanaysa meel loo raaco, wax la isku raaco. markaas kabacdina aqoontaas la aruurshay haddii la ansixiyo oo wax lagu qabto. marka waxaan leeyahay
odayaasha ama beeshinka ha laga faa'iidaysto. Dhalinyartuna fudaydka ha iska dayso, dalkooda ha u naxeen, ha iska ilaaliyeen inay maaragtay ay darajo kaliya raadiyaan ama guri dabaqaha uu dhista ha raadiyo sidii ilmihiisa mustaqbalka jiilka soo socda mustaqbalka adduunka inta laga laabhayo ama maaragtay adduunka inta laga laabhayo qof walba oo dhan dee kansal la noqonayo inay qof walba uu saa u soconayo. marka Soomaaliya waxaa ka maqan boqolkiiba boqol waxaa ka maqan xaggaan u soconno oon raabi gaari karnaa. xad ma leenahay, limited ma leenahay, xaggeen u soconnaa? Soomaaliya qof walba wuxuu ku leeyahay waxaan cunaan rabaa, qof walba wuxuu leeyahay afarta baraan noole maxaa iga galay. Soomaaliya halhays waxaan leenahay luqadaada maxaa iga galay, luqadda maxaa iga galay, dalka maxaa iga galay, qaranka maxaa iga galay, badda maxaa iga galay, biriga maxaa iga galay, xoolaha Soomaaliyeed maxaa iga galay. maanaa kaligay leh oo qof walba ku leeyahay. waroogow kaligaa markaad leedahay maanaa leh, kaligaa baa leh, aniga waa lee adna waa leedahay. inaan wada hayno, wada ilaashano, wada sharfano, wada ceshanaan leenahay. qof walba meeshu ka soo gaaro aan laga haddii alkuran shisheeye ka qaadan, qofna uusan ka qaadan. waad ogtahay maanta dalalka ajaanibiga dhibaatada ka jirta, waad ogtahay dalka adiga inta aad leedahay inaad ceshatid oo dadka kaaga dhexeeya ma aha maxaa iga gala inaad tirahdid. waa inaad bartiisa ku haysaa, waa inaad bartiisa ku sharfanaataa, inaad calankaaga difaacataa, waa inaad diintaada difaacataa, waa inaad dhulkaaga difaacataa ayo nuuca, hadduu bad yahay hadduu bir yahay, waa inaad xoolahaaga difaacataa, waa inaad cid kuusoo dhex maraa jirin. laakiin haddaad tidhaahdid adeer intaan iga sii Soomaaliya barkeed intaan iga sii, meel alla meeshii lagaa weydiiyo waan ognahay wax badan Soomaaliya waxay ku burburtay. adiga waxba kaama geline ii saxiix saan yeela, adiga waxba kaama geline lacagtaan qaado saan u suubiya, adiga waxba kaama geline waxaan bahalkii ii sameey ama ii saxiix ama waxba kaama geline. marka walaalayaal hadda wixii qaldanna waa ila sixi kartaan, wixii saxana waxaan leeyahay dalka ha loo dadaalo, waayeelkana maaragtay xogta ha laga aruuriyo, dhalinyartuna ha u fakereen meeshay u socdaan, dalkan meesha u socdaan ha u fakereen, ise ka fakerin waxay maanta ay horumar baan gaaray, madaxweynea noqda ama waxaa noqda geed la yiraahdo ama agaasimo guud baa noqda ama waa halkaasa u socdaa. ma ahan fakerkaasu iyo dabaq baan dhistay ma ahan. waxaa waaye nolol inaad ku noolaatid, amni ku noolaatid, gumaysi aadan arkin, iska dhicisid wixii ku gumaysanhaya, ilmahaagu ay nolol iyo ku noolaadaan sharaf, oo ilaahay maaragtay gumaysigii rabbi looga magan galo, oo ilmahaaga aysan gumaysi ku noolaan, oo adiga noloshaada aadan gumaysi ku noolaan, ee dalkaaga quruxda badan aad ka ceshatid cadowga. taas waaye aan u sheegahay dhalinyarta. dadka waaweyn waxaan u sheegay waxay soo mareenba waa soo mareene, ha laga faa'iidaysto. weliba odayaasha waxaa suurtagala nin walba inuu maaragtay u arko in laga tegay waxbay ku hadlayn karaan laftigooda hadday ogaadaan aan la rabin fakarkooda iyo waxay samaynayaan iyo maaragtay waxqabadkooda ama la rabin oo inta la ruugay la calaliyey layska tufo laga tegay, ayaga laftigooda wax badan bay sameeyaan, wax badan ba bi'in karaan. marka waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto, ha la aruuriyo, waxna ha laga qoro. aad baan idiin salaamhayaa dhammaan walaaluhu meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay wixii qaladana ha layla saxo, wixii saxana ha laygu soo dhiirogeliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuh.